waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii Siyaad Barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tagay ugu yaraan 34 sano ka hor waxaan anagu tuunsanahay 1990kii xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya ka talinaysa waa dhacday maanta haddaad gashaan social media dhammaan gobolladii Soomaaliya qabaayil baa islaynaya arrintaasi waxay muujinaysaa in waxyaalaha hadda dhacaya laftigoodu ayna ahayn waxyaalaha hadda bilowday wax salka ku haya taariikhda hore ay tahay nacayb badan oo ku salaysan haybta yaa la abuuray waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii Siyaad Barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tagay ugu yaraan 34 sano ka hor arrinta dacawalay dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee ururada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waaga dhacay waxaan ugu baaqaynaa naca iyo qalfoof la dagaalanka siyaasadda ku salaysani inayna ahayn mid horumar iyo nabad gaarsiinaysa arrinta dacawalay ee dibada xarshin ka dhacday oo ogaayay in qalbiga aad ku haysaan waxaan ka dirayaa baaq nabadeed shacabka wax gaareen halka degan haday barakac noqoto iyo hadii garanaysa isku dhici jiray muxuu ahaa wixii ka yimid booliska gaari iyo dadkii la dagaalamayba dhammaan waa dadkeeni inta badan way waan tuunsanahay dad ka soo talaabay xadka oo jeedooyin kala duwan jiraan inay ku dhex jiraan haddana mar hadii dhexdana lagu dagaalamay dadku waa dadkanagii waa dadkan mas'uulka u ahayn ciidamadaas halka joogay nabadda ilaalinayay tacaddi xun baa lagu sameeyay waa la laayay kooxaha baabuloon hubaysan baa laayay aad iyo aad aan ugu tacsiinaya ciidamada aad iyo aad aan ugu tacsiinaya dhibaatada soo gaadhay ilaahay ha u naxariisto insha Allah hadii duco barnaamij ducana waa loo qaban doonaa marmaha soo socda markii dadku isku dhaca sababaha jira awgeed wixii doona ha noqdo garoonka bad lagu ciyaarayo yaa booliska dadku isku layn karaan wixii dhacay saas u noqonaya wuxuu ka dhacay deegaanka Soomaalida weeye dawacali waxay la mid tahay shinni la maanta aan joogno kale waa mas'uuliyad xukuumadda deegaanka Soomaalida saaran waxa hadda aad lagu hadlayay xasuuq baa ka dhacay meesha waxa kale oo laga hadlayay ciidankii liibi booliska waa xasuuqno waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka hadii booliska la xasuuqay maxaa loo xasuuqay oo loo laayeen bay noqon haday iyagu xasuuqeenna cidii xasuuqeen ee maatida iyaynu baariyo wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal qof oo maatiya oo hubaysane ciidanka la dagaalamay aan ahayn halka inay kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee colaadda laftigeeda waa dhibaato hooyada ka barakacda meel xitaa dib u baxda ee dhibaato